ururka ay ku midoobeen qaar ka mid ah jaamacadaha dalka ee loo yaqaan ururka wacyigelinta beeralayda Somaliland ee SAFO oo ka shaqeeya wacyigelinta beeralayda ayaa waxa ay wacyigelin ka bilaabeen deegaano ka mid ah gobolada galbeedka Somaliland gaar ahaan deegaanada Abaarso, Arabsiyo iyo deegaanada hoos yimaada iyagoo halkaasi ka wacyigeliyay beeralayda deegaanadaasi sida ay kor ugu qaadi lahaayeen wax soo saarka dalka sidoo kalena ay uga badbaadi lahaayeen caqabadaha beeraha ka soo wajaha ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka wacyigelinta beeraha Somaliland ee SAFO Saacid Daahir Muuse isagoo ka warbixiyay muhiimadda ururkani loo aasaasay waxaan nahay urur ka jira Somaliland oo ah aqoon-yahano bartay arday aqoon-yahano oo bartay beeraha kulliyadda beeraha sababtan maanta halkan u nimid waxa weeye maadaama nahay arday cilmi u bartay dalka inaan la fariisan ama gurigeyga la fariisan ama aan xafiis la tagin aan dadka gaarsiino wixii aqoontayda aan dadka gaarsiino taasaan maanta halkan u nimid ujeedooyinka aan u aasaasnay waxa weeye sidaan hore idigu sheegay inaan beeralaydeena waa dhiirigelino wacyigelino training siino dhinac walba wixii karaanka yaga annagoo waliba aanan maanta ahayn hay'ad ama tababar bixinaysa oo lacag qayminaysa oo waxa awood leh waxaan nahay arday ka damqatay aqoon la'aanta ka jirta dalka sida awgeed waa keentay maanta inaan halkan isugu nimaado deegaanku iyo dadku inay fahmaan in seminar lagu qabto oo lacag lagu siiyo adi faa'iido kuma laakiin waxa kaaga muhiimsan hal shay oo laga wacyigeliyo lagu raahdo sidaan siyaasiyeel oo dhinacii beeraha ayaa ka muhiimsan oo qaadato oo ku faa'iideysa laakiin lacagtu way dhamaataa waxba ma haba sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah ururka SAFO oo halkaasi kelmado dhiirigelin ah iyo gabayo lagu baraarujinayo beeralayda iyo shacabka Somaliland halkaasi ka jeediyay markaan aragnay baahida weyn ee loo qabo urur ka turjuma beerihii oo wacyigeliya oo beerihiisa kor loogu qaado wax kasta waxa u baahan yihiin wacyigelin iyo dhiirigelin wax kasta marka la dhiirigeliyo ay wax soo saaraan ujeedadeedu waxa tahay inaan u buuxino gaabka banaan waxaan ka hadlayaa fahanka guud ee dalka ay ka aaminsan yihiin shacabka Somaliland iyo xaqiiqda dalkani taala xaqiiqatan marka la eego dalkani Somaliland waa dal dihan dhanbadeed iyo dhanbariba ururkani wacyigelinta beeralayda Somaliland ee loo soo gaabiyo SAFO waxa uu dhaxda u xidhay kobcinta kor u qaadida hanaanka waxbeeriseed ee guud ahaan jamhuuriyadda Somaliland sidoo kale waxa uu door laxaad ka qaataa himilooyinka uu qarankani ku naaloonayo si uu qarankani u gaadho dal isku filan oo ka kaaftooma waxyaabaha la soo waarido dhulkeena ballaadhan ee balliciisu weyn yahay badihiisa daayo barigiisu waa hodan biyaha burqanayo boqortooyada ayo waxa dunida buuxiyay baadkiisa ma helaan wax si aan baraarugin bulshadeena weeyaan balse waxa bushaaro ah SAFO baaqa ay wado inuu yahay bidhaan iyo halkii loo buddigilaa halka reerku beegsado geesta kalena beeralayda deegaanada Abaarso iyo Arabsiyo iyo deegaanada hoos yimaada ee wacyigelintaasi uu ururku siiyay ayaa halkaasi su'aalo ah caqabadaha ka haysta beeraha halkaasi ay ku weydiiyeen ururka SAFO ko waxa kamida araguurka dhulka ku yimaada kalabaad waa geedkan la yiraahdo garanwaag ka saddexaadna waa kalidinoola qodobka labaad waxa weeyaan waxa jira imika wax kasto aad beerto waxa xayawaan baa jira la soo raaciyay waxa siirka soo raaciyay anagu sidaan aamin waxa ka shinida oo siirkaas waa shinidii weeyaan oo siir xumad waayo waxa kamida wadankeena waxa ka bixi jira xabxab ee miisal gaaban hadii soo qaado xabxabkeenaasi waa la iska dhaxlayo aabahay ma ka dhaxlo awowga ma ka dhaxlo xubno ka mid ah ururka SAFO ayaa ka jawaabay su'aalaha ay beeralayda deegaanadaasi weydiiyeen dawladdu tusaale ahaan aan awood u lahayn ama aan joojin wixii dibadda ka imanayay si waxa weey looga furiyo qofkii wadaniga ahaa ee muwaadinka ahaa ee wadanka u dhashay qodobka koowaad haddaan dul istaago ciidda ama waxa la yiraahdo nabaad guurka labaynu kala qaadaynaa mar waxaynu eegaynaa ciidda maxaa nabaad guurka keena marna waxaynu eegaynaa ciidda maxaa wax ka bedeli kara tusaale ahaan waxa koowaad in nabaad guurka keena waxa la yiraahdo waxa kowka waxa weeye biyaha roobka tusaale ahaan daadadkii oo bata oo biyo socdaan oo la qaban waayo qodobka labaad waxa weeyaan waxa la yiraahdo dabaysha qodobka saddexaad bilaadanki baa keeni kara oo deegaankii xaalufinku keeni kara arrimahaas oo laga hortaga waxa keeni kara in carradii la qabto qodobka labaad ee carrada dili kara waxa weeyaan iyadoo loo isticmaalo carra nafaqeeyayaal aan dabiici ahayn waliba si aan proportion sax
ama waxa weeye nidaam sax aan loogu isticmaalin ciidii oo si aqoon leh oo waxa weeye xikmad ku dheehan tahay aan loogu isticmaalin qodobka saddexaad aan xalka u aragna waxa weeyaan dhirtan loo yaqaano allobatic baa la yiraahdaa luqada qalaad waxa la yiraahdaa garanwaaga iyo kaliya noolu ma yeelaan inuu geed kale ka agbaxo bal u fiirso adigu geedka garanwaagu maanta ma yeelayo xididkiisa ama geed kale inuu ka soo agdhawaado ma yeelayo sababtoo waxa weeyaan xidido dhaadheer bay la baxaan waa kow xididka kale ee geedka kale samaysto ayuu ku maraa waa laba sidoo kale wax kiimika la yiraahdo ku sii daaya intaas waxay keenaysaa inuu geedkii kale meesha ka saaro oo gabi ahaanba uu ka takhaluso oo ogolaan waayo inuu geed kale ka agbaxo qodobka ku xigay aan waxa weeye u soo jeedin xukuumadda waxa weeyaan maanta waxa weeye aad buu ugu mahadsan wasiir Axmed Muumin Saad inuu joojiyo oo waxa weeye uu boolisiga joojiyo in marka qofkii muwaadinka ahaa uu garowgiisa yaraa uu soo go'o ama galeediisa u soo go'do in WFP ay wadanka keento galay bilaasha oo waxa weeye arrinka uu joojiyo ama qabande ay keento dawladda aad baan ugu boorinaynaa inay arrinka ku dhiiratay oo waxa weeye ay ka furiyeeshay qofka muwaadinka ee wadanka u dhashay inta tiisa laga iibsanayna taa ay waxa weeye containerka lagu hayo magaalada Berbera waxyaabaha mushkiladaha ugu badan lagu hayo waxa kamid ah shinideeni horeynu ka tagnay wax warqad yar oo qurux badan oo kala raleeyno ugu soo dhajiyeen bomboonina waxa inagu dhaqanka u lahayn inaynu awoodayaashan ka dhaxalnayna waynu ka tagnay inagu marka sida jirta dadkeenu ma dhaadsanaynta badan dukaanka tagisa waxaan saasun cayaankaas beertiga galay mid magafagam ka siisa si heerarkaas waxay kala sheegayaan heerka suntay kala leedahay dawadani marka waxalka waxa jira isfahan waaba ka yara jira waxa jirta ta ugu imka liidka casle waa ta ugu sunta badan marka loo eego sunta ku jirta ay maaha cayaanka sidii u dilayso gebigoodu afarta kala reeynu sheegnay way ka sameeyay cayaanka u dilayaan laakiin levelka waxa loo kala sameeyay kalarkan iyo heerkan sidii waxyeelada dadka u soo gaarsiinayso taas maaha midaynu fahansanahay waxa jirta xilliyada ay sunta buufino dadkeenu aad ma yaqaanaan waxa jirta xilliga dabeysha jirta lama buufiyo xilliga cadceedu kulashayna lama buufiyo waxaan arkay anigu oo soo taagnaa shakhsiyan qof buufinaya 12 duhurnimo garan fiirana xira marka waa aad istaqadminaya naftu waqti bay leedahay naftu saacad bay baxaysaa laakiin inuu ku degdegna ma ahan oran karaa in nafteena ku khamaarno waxa xusid mudan inay ku yar yihiin Somaliland ururo ka shaqeeya wacyigelinta beeraha taasi oo bedelkeedana ururka Safo oo ka mid noqday ururada ka shaqeeya wacyigelinta beeraha Somaliland Cabdijabbaar Maxamed Xuseen wararka telefishinka Ariel Hargeysa